waana riyo wey riyo soomaalidu inay heshiisaa lala qaataa annagu ak waana soo maray mana rabno inaanu dib ugu noqono ak la isugu taliyo taariikh madow buu ka tegey mana kala xoog badnin maskaxa aan ku heshiino nin ku fakeraya ma uusan jirin kuwa hadda weli aakaha daba jooga waa la yaabaa moogta war waxba kuma hagaagaan wax la dilo iyo wax maaragta loo xoog sheegto waxba kuma hagaagaan waxna nagama dumeen hadday waxaa shaqaynayaan dowladda iyadu maba dunteen laakiin waa wax laga gudbay way caalamka aaka kama shaqeeyo aragti baa ka shaqaysa aragtidaas baanu rabnaa inaanu ku midowno horta midan macnaha aan leedahay isku imaad soomaali in walba damac uu leeyahay in walba wax buu rabaa qof walbana waxa uu sheegtay dee ma heli karo maxkamadaha waa dad isuweyn way ahaayeen lama diidana laakiin ani midaan ka hadlaya waxay tahay siyaasadooda ma ahe amniga horta ma ku guulaysteen muddo yar inay gobolka banaadir iyo agagaarkiisa ilaa meel walbana gacanta la taago haa way ku guulaysteen aakaha mar waxtar buu leeyahay dalbaa ilaa hadda aaka lagu maamulayo ummadiisu straight forward ay tahay cid waxa waaye maagaysa jirin oo nabadgelyada sugan madaxweynaha uganda yoweri kaguta museveni meeqa sano u maamulaa 38 sano maraya maalintuu ka tuurayay milton obote ilamaa hadda waxa waaye lord resist amia wax jabhad iyo kuwa iyo milton obote kulli waa iska tageen annaga waxna haysta waxay tahay oo awoodda macnaha mar walba laga kala dhantaalayo waa un hal mid anusaa aaminsana waxay tahay dadka madaxda macnaha raba ama dowladda wax maamula ayaa cadaaladda ka dheeraanaya sideedana qofku cadaaladda hadduu ka dheeraado ilaahay garabkiisa wuu ka baxay laakiin intuu cadaaladda qofka ku sugan yahay oo dadka ay u sinaadaan waxa waaye oo ummaddana uu rabo inuu horumar gaarsiiyo oo dee ka bixiyo kala qobqobnaanta aanu cidna jecleen laakiin maanta ana haddaan jeclaado beledweyne inay ka fiicnaato inta kale magaalooyinka kale soomaaliya aan iyada ka hormariyo oo dhaqaale iyada geliyo oon dadka kalena gumeeyo dee macnaha faa'iido ma keenayso oo dowladda horumar ma noqonayso markiiba ama waa la mucaaradi ama waxa waaye waxba u socon maayaan ama hadduu damacsan yahayba inuu ka dhaqaalaysto uu ka hantiyeysto oo familkiisa iyo sare dhaadheer iyo waxyaalo kale uu u sameeyo dee horumar noqon lakin waxaan ka hadlaya waxay tahay war nin ku shaqeeya caadil inta uu awoodo dee caadil waxa weye ilaahay baa macna bini aadamku waa ku adag laakiin tabartiisa intuu awoodo waxa waaye waddanka waa isku wadi karaa waddankana wuxuu u baahan yahay awood buu u baahan yahay in lagu qabto ninkaas kibirka sheeganaya xoogga sheeganaya ummadda horjoogaha u ah dadka laga horleexiyay ummadda iyo dowladda horta ha is arkaan markay is arkaanna oo aad awood u yeelatid inaad dadka hubka ka dhigtid balaayadan isku baabi'inayaan faa'iido uma leheen dad oo lagu aamini karo hubkaas oo ciidan carbiyeysan oo nidaam ahoo xaqoodana dowladda ka hela oona hubka loo dhiibo lagu aamino waa lasoo celin karaa si male dowladnimada markaas laakiin aan wada heshiino oo laisku imaado oo war intan aan arkayn garowe 1 iyo garowe 2 iyo gaalkacyo iyo maxaa laga dhaleefay tii xasan waa ogeyn maxaa laga dheefay horumar ma laha ilaa lagu dhaho amniga waxa waaye waa in aan ka tashano war amniga gobolka banaadir iyo waxa ku hareeraysan waxaa lagala tashanaya maamul goboleed baa lagala tashanaya waxa aqliyadaas aqliyad shaqaynaysa ma aha
shay walba waa kugula jiraa weeye. Anigu inta waad arki doontaan cimriga ilaahay hadduu na siiyo, inta lala tashanaayo wada tashi ay jiro horumar uma soconnee, dib u dhacaan u soconnaa iyo NGO-ga dowladdana ninka imaado kistiisa inuu ka shubta waqtigiisa markuu dhammaadana uu dee isaga baxo. Laakiin anigu waxaan rabaa war waxba meeshan ha ka raadinine dadka hormuud u noqo oo dadka wax dhisi jiray waxa waaye u samayn jirayoo u noqo. Marka xooggu marmar buu faa'iido leeyahay, laakiin xoog dulmi ah anu ka hadli maayo oo ummad lagu dulmiyo gaar ah. Waxa waaye dadkaana lagu kala fadilo taas ma aha. aad iyo aad warsoorkiina waa noo yimid war xusni waa anigu horta waagii maxkamadaha aad sheegayso waxaan joogay boosaasaan joogay cadda muuse madaxweyne noo ahaa marka nimankii xamar hadday xasiliyeen oo qabqablayaashii soo eryadeen oo bandiiradley iyo meelahaasii soo gaareen gaalkacyo agteeda oo cadda waxaa la yidhi waa dowladda islaamiga waa kugu soo dhowdahay maxaad samaynaysaa maxay naga soo doonay annaga muslimaan nahay annaga islaam ilaahay baanu nahay halkaasuu maray wallaahi wax xanuun badan bay ahayd wax ishortaagi karay ma jirin laakiin iyagaa balaayo isuwan ahaa markay jabtay oo etoobiyaanku soo galayna dee waaba la ogaa wixii ka dhacay waxaan san lahayn bay ahaayeen laakiin waxaan xusuustaa berigaas atan baa wuxuu joogay muxuu ahaa isaguna buuruhu joogay xilligaa cadde atan hadda nin nabadoon uu ahaa atan waa wada hadleen ninoo baadaada qaaduu yiri aniga haygu rabsheen wixiise meeshaa loogu genjiyey xogaagiisa uu leeyahay hal qof oo madax jabisa boosaaso kama dhicin dagaal ma jirin carradu nabad bay ahayd waxooday kala goosan jireen nin nabadoona buu ahaa faroole markuu yimid baa atam iyo faroole gacmuhu isa saareen hadde wixii ka dhacay waa la ogaa baabah baa laysku noqday marka fikirku waa wax fiican waaye anigu caadaan taageersanaa hadde nabadoon buu ahaa dadkaas wuu u yeeray atam iyo xulufadiisa iyo reer ahaan buu ula fadhiistay mar wuxuu yidhi meeshaan anaa madaxweyne ka aniyo haddaad tartan soo geliso soo gal haddaad rabto inaad maaragtay wax walaaqdana dee socon mayso wixiisaa la siin jiray atam marka fikirku waa fiican yahay nabadda qaabka lagu ilaalin kara hadda fiiri qolyahan islaamiyiinta ah ilaa waagaa waa la iskaraacay wax in dab loolu hadda inagayso Ridwano, ridwaanow atam Ridwano. dadkiisii meesha ku abuuray Ninkan dhaxal kale maaragtay Morgan halku ku dambeeyay dhulkaani Morgan. morgal waa nin muwaadin dhulkiisu joogaya aan ka hadlay arrintan uu ridwaan uu sheegay heer waxay gaareen qabiila markaa soo dhaweystay ururka argagixisada atam wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay faroole waa soo martay sheekadii xaqiiq bay ahayd ninkii waa la isdhaafiyey oo waddanka waa laga gudbiyey atam laakiin maxay ku hadhay hadda maalin walba waxa lala diriraayo iyo dadka ma aragtay xoolahoodii la dhacayo oo neefkii iyo macaa gabadhii laga qaadanayo oo waa dadkii soo abaabulay oo keenay guryahooda marka adigu haddaa baal abeese inta soo qaadatid aa qoorta ku marmaragtid oo dhahdid maamul baan ku dhibaataynayaa adigu marka dambe ku cunayaa waa dhibaatada maalin walba meesha ciidamada puntland ay qarka u taagan yihiin waxaana fabilkii markaa meesha keenayna ayagii buu cunayaa gabadhii buuna cafinay xoolihii bay ka qaadanayaan neefka ugu jira wax walbay ka qalanayaan sahay bay ka qaataan xoog bay uga qaataan xoog yaa abuuray yuu ahaa atam meesha marka waxaa loo baahan yahay abeese inaada qaadan
beelo abeeso inaada qoortaada gashan aa loo baahan yahay doodeena beeloy xaggaas waay leeyahay beeloy waxaan ku weydiiyey dagaalkii kadib wax ma xallismeen mise sidii bay meeshii bay taaganta hadda baa fikirkii maaragtay dadku ay markaa ayagu ay soo qaateen fikirkii baa weli ka shaqaynaya bartaa waana la ogyahay qoyska u badan iyo dadka meeshaa degan iyo kuwa buuraha ku jira waa la ogyahay fikirkii waa batay waa fidaa qasab weeye muddaa kasoo wareegtay qaarna waa usoo lugeeyeenoo ilaa iyo koonfur ay uga imaadeenoo way galeen buurihii qaarna dhanka waqooyigay ka imaadeenoo waa lagu wada jiraa meesha laakiin meesha ciidamaa kor taagan boosaaso meeqay u jirtaa waxyar waa u muuqataa buuraha beelo dood yaa meesha dultaagan majanaa lagu sheegay meesha maxaa laga maya dooran waayaa bay ahayd geelo geelo doodaasana gelin waxaan ka hadlaynay horta galil waaye marka bas waa ka baxay maya ridwaan xaggaas kama hadlaynin anaga waxaan ka hadlaynay ridwaan baa waxay ahayd xoojinayay qaabka muuse waa dowladnimada ka beelo baxay macnaha waa loo ka heli baxay karo feeri macnaha atam iyo xaggaas macnaha ridwaana hadda ka hadlaya mooyaane annaga niman lasoo dhaweystay iyo maaragtay hadda islaamiyiin iyo waxaas kama hadlay laakiin waxaan ka hadlayay waxay ahayd simbale